السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي wanaagsan saaxiibayaal mar kale meel kastoo aad joogtaan waxaynu eegaynaa heesta ogbadaragsan iyo falcelinta ay tooska ugula hadashay mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee baraha bulshada aadka loogu yaqaan ma doonayo magaciisa inaan idin sheego laakiin idinka ayaan idinku xujeynayaa qofkaasi magaciisa inaad sheegtaan laakiin waxaan idin siinayaa saddex asbaabood oo heesta ogbaad ee la yiraahdo qoyskaaga maamulo ay qofkaasi si toos ah iyo si dadban ula hadlayso haddaba adiga oo garaadkaaga aan qayb u dhaafay ama jawaabta aan qayb ku deynayo waxa aynu wadaagi doonaa oo halkan ku wadaagi doonaa qofkaasi qofka uu yahay dhalinyaradaasi baraha bulshada caanka ka mid kamida ayaan anigu u arkay inay heestan ugu jawaabayso adigu se ma igu raacday oo ma ila qaadatay fikirkaasi haddii ay tahay ha aynu dhageysano qaybta koobaad qoyskaaga maamulo marnamaada wasaarini inta qaabilo isqoomamaynin qoyskaaga maamulo marna maad qasaarinay runta qaabil oo joog wani family qoys le haddana qof kale ku qanacsan waqti la qaata waqti badan geliya fursad fara badan siiya intaasi aan qofka ka soo qaaday adigaan doonaya waa qaybta koowaad labada qaybood kalena faahfaahin ka balaaran ma ku siinaya qof kale la hadlayso ha isqoomamaynin qoyskaaga maamulo marna maad qasaarinay runta qaabil oo joog qalbigaaga sii jira alla qof nasiibku kaa diray soo jeedi waa qado qaybta labaad ogbaad waxay tidhi aynu eegno ay qofkaas sida tooska ugula hadlayso calafku qorna iyo degdeg baa ku qaatay calafku qorna iyo degdeg baa ku qaatay calafku qorna iyo degdeg baa ku qaatay labada qodob ee kala qaadayna marka hore calaf family baa tahay reer baad leedahay meel baad degantay degdeg baa ku qaato qofka waqtiga badan aad la qaadanaysaa daahaana uu ka yar yahay de waana qof single madax banaan adiguna family baa tahay marka degdeg baa ku qaatay degdegaas ha noqdo calafkii aad adigu hore u guursatay ama ha noqdo daahaan to aad ama dhali karto ama aad ku laba jibaarmi karto marka calaf ku qornaa iyo degdeg baa ku qaatay waa markii labaad ee qofka sida tooska u abarko marka saddexaadna waxay ku oranaysaa weyn isla eegi doonaa waad ila aragtay Soomaa qofkii bay la hadashay waxay ku tiri war marwadaada qiime waqtigaaga qaabe qudhataa wadaagtaan qaydkeed ha dhaaftee qanci oo jacaylsi okay haddaba maxay uga jeedaa mar waad leedahay family baa tahay meel baad degan tahay allah ku barakeeyo horta koow walaal qofta kula joogta qiime ee reerka kula degan ee guriga ku joogtay ubadka ku haysa qiime waqtigaaga qaabe iyo waqtiyadana fakasiga ama fasaxaadka faraha badan leh qof kale la qaadanayso qaabe qudhataa wadaagtaan ee nolosha iyo qoyska iyo family adiga kula ah qayrkeeda ha dhaafto maskixiya qayrkeeda ha u dhaafto physically iyo psychologically labadaba qayrkeeda ha u dhaaftee qanci oo jacaylsi macnii inaad qof dumar oo kale xaflad la tagto inaad qof dumar oo kale gawaadhi la korto diyaarad la raacdo dabaan la aado meelaha wiifooyada la korto iyadoo adiga marwa guriga ku joogto waxay nusqaan ku tahay cidda guriga kula joogtay nusqaan ku tahay inagoo karaamo iyo sharaf ku hayna dhammaan qoysaska Soomaaliyeed haddana war ku dhataa wadaagtaan qayrkeed ha dhaaftay qanci iyo jacaylsi maxay tirugbaan marwadaada qiime akhtigaaga qaabe qudhataad wadaagteen qayrkeed ha dhaaftee يا ودود halkan oo kale document baa loo jiray kabashiilan ka soo qaatay si aan maskaxda u dejiyo heestan u dhuuxo u dhageysto kadibna anigu aan u eego meelo badan ka eego fanaanku marka uu hees qaadayo waxa uu ka hadlaa dareenka bulshada dhexdeeda yaala waxa uu ka hadlaa sida uu arko xaaladda ay bulshada ku dhex jirto ama bulshada Soomaalida heesta marka
dadka Soomaaliyeed ba qolba meel u turjuntaayo meel u fasirtaa day mucaarad iyo day muxaafid ay qof laga hadlayo qof loogu jawaabiyo waxa soo dhanba bulshada ay dhex taala oo falcelinta ka bixisa haddaba heestan qoyskaaga maamulo anigu waxaan u fasiray ubaad inay la hadlayso mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed caanka ah ee malaayiin qof ay ku xidhan yihiin ama malaayiin qof daawadaan kaasoo ay leedahay marwadaada qiime waqtigaaga qaabay ku dhataa wadaagtaan qoys qeyrkeed ha dhaaftee qanci iyo jacaylsi haddii aad igu raacday hoos igula wadaag isla markaana fikirkaagu wuxuu qayb ka noqonayaa inaad nagu taageerto reaction-ka ama falcelinta aanu ka samaynay haddii aad u aragtay inaanu khalad samaynay ama qof aan u jeedin aanu anagu masabinay ama aanu khalad ayadaan lahayn dusha ka saarnayna nala wadaag oo masax oo waxaad tidahdaa mudane ama halkaasi ka daa gacanta waanu qaadan doonaa kulanti dambe waa Mustafa Xaaji Aadan Haaruun iyo Aqoonsi TV waxaan idin leeyahay fi amaan Allah